Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idinla wadaagaynaa qiso dhab ahaantii aad u cajiib ah, isla markaana dareenkaaga wax badan ka bedeli doonto. Waa qiso ku saabsan sadaaqada iyo saaxiibtinimada dhabta ah. Waa qiso ay qof waliba sheegta saaxiibtinimo ay ugu sugan tahay ku daysho iyo waana qaadasho wanaagsan. Qisadan ayaa waxay dhex martay laba wiil oo saaxiibo ah oo u dhashay dalka Sacuudi Carabiya. Qisadani ayaa waxaa ka sheekeynaya ruuxii la kulmay isla markaana goobjoog ahaa. Wuxuuna ahaa nin ka shaqeeyo qabriyada iyo dhaqista meydadka. Ninkani ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo keenay wiil dhalinyaro ah oo meyd ah. Markii la soo geliyay qolka meydka lagu dhaqo ayuu wuxuu arkay wiil kale oo dhalinyaro ah oo meesha taagan oo dadka dhan ka soo saaray qolka, isla markaana dhahaya aniga kaliya ayaa dhaqaya meydkan ee dhammaantiin banaanka u baxa. Ninkii gudaha ayuu soo galay, wuxuuna damcay inuu meydka la dhaqo. Markii ay bilaabeen inay meydka dharka ka siibaan ayaa wiilkii wuxuu bilaabay ooyin. Ninkii ayaa ku yidhi maxaad la ooynaysaa, aan dhaqno meydka. Markaasuu kadib wuxuu ku yidhi meydkani ma walaalkaaba? Markaasuu yidhi maya, ninkani waa saaxiibkay. Markaasuu ku yidhi maxaad sidan ugu ooynaysaa? Wuxuu yidhi wiilkani waxaan isla soo qaadanay nolol aan sina u ilaabi karin. Wuxuu yidhi waxaan soo wada dhiganay iskuul laga bilaabo dugsi hoose ilaa jaamacad. Waxaan ka wada shaqaynaynay hal shirkad. Waxaan wada guursanay laba gabdho oo walaalo ah. Waxaan wada deganay hal guri. Mar waliba waxaan wada aadi jirnay masjidka. Raashinka hal mar ayaan wada cuni jirnay. Ninkii aad ayuu ula yaabay. Kadib meydkii ayaa la dhaqay, waana la soo qaaday. Markii lagu dukaday oo la aasay ayaa wiilkii iska soo tagay. Maalinkii xigtay ayaa ninkii waxaa loo keenay meyd kale. Markaasuu wuxuu soo galay qolkii lagu dhaqay meydka. Markii uu dhaqitaankii bilaabay ayuu wuxuu arkay wejigii meydka. Markaasuu aabihii ku yidhi wiilkan wejigiisa iguma cusba. Aabihii ayaa ku yidhi ninkii meydka dhaqayay, yaa sheekh sideed u hadlaysaa? Wiilkani waa wiilkii shalay meydka kula dhaqayay. Waa wiilkii shalay dhintay saaxiibkiis. Ninkii aad ayuu u naxay, wuxuuna bilaabay inuu oynayo. Kadib meydkii ayay soo qaadeen. Markii ay keeneen qabrigii ayaa waxay ku aaseen saaxiibkiis agtiisa. Wuxuuna ahaa saaxiibkiis lamarka 10aad qabriga markii la fiiriyo. Isagana wuxuu noqday lamarkii 11aad. Adduunyada korkeeda ayay saaxiibo dhab ku ahaayeen. Aakhirana waxay ku noqdeen daris iyo saaxiib dhab ah. Qisadani halka ayay ku eg tahay. Hase ahaatee qisadani waxayna tusaysaa saaxiibtinimada dhabta ah iyo midda alla dartii la isku jeclaado inay mar waliba baaqi noqon doonto. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka saaxiibada ama wadayga ah markii la tago maalinka qiyaamo waxay isku qaadan doonaan cadaawad ilaa kuwa alla ka boqo oo alla dartii isku jeclaada mooyaane. Qisadani waxaan sidoo kale ka faa'iideynaa qof haddii aad jeclaanayso ha u jeclaanin dana adduunyo iyo damac kaaga jiro, balse waxaad u jeclaataa Allah subxaanahu wa tacaala dartii. taa ayaa mar waliba baaqi noqon doonto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamaarkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.